سما قرن كويه حرني ما سم الله وانا قصدو سبكي مني ما سري ذدلي سلك ديجي سما قرن كويه الله وسيادي نبدا سوغنو برواقة كسور سوماليلان الله وسيادي نبدا سوغنو برواقة كسور سوماليلان wasiirka caafimaadka Soomaaliland iyo wafdi ballaaran oo ka tirsan wasaaraddiisa ayaa gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Ujeedada wafdiga wasiirka ayaa ahayd xoogaal noqoshada xaaladaha caafimaad ee gobolka iyo qiimeynta iyo ballaarinta laga wado isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood taasoo ay barbar socotay gurmad caafimaad oo loo sameeyo dadka abaaraha ku tabaaloobay ee ka jira gobolada bari ee dalka Soomaaliland. wasiir xagla toosiye waxa uu soo kormeeray dhismayaal lagu soo kordhinayo isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood sidoo kalena waxa uu shirar gooni-gooniya la yeeshay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolkaasi isagoo kulamo gaarana la qaatay mas'uuliyiinta caafimaadka gobolka Sool isla markaana ku wareejiyay dawooyin iyo qalab caafimaad. nimanka ku wareejiyay suduwaha caafimaadka gobolka Sool daawo darkaysaana daawo aad u qiimo badan iyo mishiinkii suuxinta oo isna aynu soo aragnay markii dhaweyd waxaan filayaa in kullu mid ay aad idin anfaci doonto dawadaasi sida rasmiga sida sharciga loo isticmaalo mishiinkaas suuxinta ah waxaan uga mahad celinayaa horta Dr. Adna oo iyadu ka soo shaqeysay 6 mishiin oo kuwana noocana oo suuxinta oo Boorama iyo Hargeysa iyo Berbera Burco iyo Laascaanood iyo Cergaabo loo qaybiyay mishiinadaas oo anfici doona oo waliba ay ku lamaan yihiin xirfadlayaashii loo soo tababaray ee ku shaqeyn lahaa iminka gabadhii halkan hadda aynu kula dardaarmaynay si gaara mishiinka loo soo baray iyadoo markii horeba suuxiso ahayd ayaa haddana mishiinka si gaara loogu soo tababaray oo mishiin aad ka faa'iideysan doontaan dhismaha waan soo kormeeray dhismayaashu meel wacan bay marayaan dhaqsana uu dhamaanaya sida ay muuqata dhinacii kale dhaqaatiirtii waa la qaatay way imanayaan hay'addiina way imanaysaa wadaysay meel wacan buu maraya cusbitaalku waana dadaalaynaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waana mahadsantihiin وها مشين سوحنا يتكنيشن كيسيو وضع صعدة يدور له بلاد مالها اسبتال كفلان ده هو شنات كا مرتبنات كا تبان وانا يلا صعلون ده هكذا الهوش والمال في عام مرس اسبتال كنا رشف في عام وليه هذه هذا حكومة هذا النوسير هذه يفتقى قبلارن كم وسارده iyo xogayaha madaxtooyada hoyaha golaha wasiirada deeqahan ay wadaan ay isdaba jooga aad u geenaysaan meelaha abaaru ka jiraan qaasna gobolada bariga ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay miisaanka aakhirada ku daro wax aad u qiimo badan in qofka mas'uulka ah markasta oo ka warhayo meeshuu mas'uulka ahaa uu ogaado baahideeda taasna wax way waa himilooyinkaagi baahayd iyo himilooyinka madaxweynaha qarankan in la gaarsiiyo meesha ku habboon ugu canayd xagga caafimaadka adigana kulli taariikhda ku xus doonto raad badan oo aad leedahay baa dalkan yaala ha noqoto galbeed iyo bari ha noqoto aad ka tagi doonto midla kariim qolada cusbitaalka waxaan ku boorinayaa daawada laga keenay dhabarkeena taala iyadoo waxaan u maanayaa dhowr laata cash ka horna mid hore la keenay aad soo dirteen aan goob joog ka hayn iyada ilaashadaan halkii loogu talagalay iyo baahidii loogu talagalay ay ka fiin doonto midla kariim waxaan mar labaad iyo mar saddexaad mudane wasiir ku leenahay soo dhawow hawlaha inta ka hadhay cusbitaalka haday tahay SDF-ka laga dhawaajiyay iyadana waxaan jeclahay inay soo dirdirgeliso annaguna ka gobol ahaan waxaan diyaarnahay markasta inaan la shaqeyno bahda caafimaadka iyadoo halbowlihii ummaddu ay lahayd aad baan wasiir ku salaamanaa ولا كما سيستسامي كله سنو على يود شان سري أبي كنا قصيدو
سامي كله سنو على يهود شان سري أبيك وانا كسيدو wafdiga wasiirka wasaaradda caafimaadku markii ay dhamaystireen booqashadii shaqo ay ku joogeen gobolka Sool waxay si toos ah ugu gudbeen dhinaca gobolka Sanaag iyagoo cisbitaalka magaalada Ceerigaabo ku wareejiyay dhakhaatiir ay wasaaradda caafimaadku ugu tala gashay inay ka howlgalaan magaaladaasi sidoo kalena ku wareejiyay dawooyin wasaaraddu ugu tala gashay gobolka iyo qaybo kale oo dawooyin kuwaasi oo ay soo bixiyeen qurba joogta gobolka Sanaag waxaana xafladan qayb ka ahaa sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF iyo hay'adda Shifaad oo wasaaradda caafimaadka kala shaqeysa arrimaha caafimaadka xafladda ballaaran ee ka qabsoontay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaanu daawadayaal idinku soo gudbinaynaa barnaamijkan runtii waxaan ku jirnaa waqti kulul oo ay cadceedu kulushahay waxaan idinka raali gelinayaa kulli hawsha oo badnayd inay waqtigan inagu soo gaadhay Ceerigaabo dhaxana oo aynu inagu markii hore soo daahnay labaduba way keeneen kulli inaynu waqtigan halkaas ku soo gaadhno maanta wasiirka aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa socdaalka uu inoogu yimi oo isugu jira horumarka caafimaadka ama shaqadii qaran ee gobolka runtiina inaga inoogu muhiimsan tahay dhismihii oo socda dhakhaatiir cusub oo laynoo keenay iyo haddii laba kuurayahay barnaamijyadii caafimaad ee hore ee socday heer gobol iyo heer degmaba waan uga mahad celinaynaa wasiirka waanan ku soo dhaweynaynaa waanan ka aqbalnay isaga iyo Shifaad iyo SDF ba waxaan leenahay aad iyo aad ba u mahadsantihiin haddaynu nahay bulshada reer Ceerigaabo waxaan markhaati ka nahay runtii wasaaradda caafimaadku waqtiyada goboladan bari Sool iyo Sanaag iyo Togdheer mid walba ha ahaatee ay ugu xoog badan yihiin inaan marayno ama loo soo jeesto wax qabadkoodu runtii aad iyo aad u fiican yahay koona ay ka tahay runtii xukuumadda maanta dalka joogta ama ka talisa iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka runtii waa nasiib wanaag runtii waxa hadal badan runtii uma bixinin kaliya maanta reer Ceerigaabo waxaan ku koobanahay inaan u mahadnaqno wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo tiimka la socda iyo barnaamijku meeshuu marayaba aad iyo aad baa u mahadsantiin ninkan waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Carabi waxaan uga jeedaa jil noocaas ah oo aan waxba kala lahayn baan u dambeynay oo reer Ceerigaabo aha wixii dambeeyay saaran yihiin si aan noqon doontaan la garan maayo pointka halkaas aan kaga baxay isagana Ilaahay naxariisti janno ha siiyo waxaan ku darsanayaa iyana waxa jirtay halkan 2005 maraan reerahayaga aniga keligay kulmiye ka ahaa taasina taariikh dhacday bay ahayd haddaan laamigii maanta keenayna alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay mahadi waa ku jiraa pointkan halkaasaan kaga baxay waxaan maqlayo soo kordhay beriga aniga waxa halkan iga haystay baa imika burca ka jiro waxaan arkay inaan saaxiib noo guuleed la yiraahdo oo isna cadaani maagayo kule reerkayga noo daa iyagaba na xukumi jiray 200 sanadood oo waligii maan oran diray reerkayga noo daa kaana waxa leeyahay adaa ku khasaare qaba haddana xitaa kaaga ku deyno kulmiyada dad waay maayo waa salaamantiin waan idin soo dhaweynayaa hawshiina caafimaadka ogaada idinkaa ka mas'uula haddii kale aw waxba qabsan weydaan waxay noqonaysaa in laamiga ladin hagaajiyo sidii galbeed ku sii socotaan waxaan hay'adii SDFT hawsheedii mashruuceedii sidii caadadiina ahayd sidii ballanteenu ahayd in wasaaradda caafimaadka uu hogaaminayo wasiirka wasaaraddu aanu dagaal ku galno sidii aanu soo dhamaystiri lahayn mashruucii SDF-ka waxa ugu horeeyay oo aanu keenad ogeydeen inaanu assessment kala jaada qaadnay kadib assessment-nada dhaadheer qaybihii uu qaybsamaa mashruucu inaanu ugu horeysiinay oo keenay shirkadii dhismaha oo aragteen oo dhismihii soconayo waxa ku xigay oo aragteen baabuurtii oo aanu keenay ambalaasyadii iyo gaarigii kale waxa kale oo aragteen oo mashruuca ka qayba shirkadii managementka oo ay ku guuleysatay oo Shifaad isla Shifaad maamulkeeda
ay qaadatay ee ay kula bahooday maamulka cusbitaalka hore awalba uga jiray oo counterpart in English ku noqonayo waxa ka qayb ahayd clinicianska cliniciansku ama dhakhaatiirtii oo ahayd saddexdii dhakhtar maxaa la yiraahday uu ku shaqeynay cusbitaalku marka uu doonayo inuu yahay cusbitaal shaqeeya waa inuu lahaadaa waxyaabo badan oo wada socda dhakhaatiirtu waa ka number 1 facility-ga ama waararkii waa number 2gii qalabkii baa ku jira dawooyinkii baa ku jira marka waxaanu maanta wadnaa oo wasiirka caafimaadku ka horkacaya oo shirkadii shifaad ay qaadatay waa dhakhaatiirtii sida aragtaan dhakhaatiirta halka ka soo jeeda waa saddexdii dhakhtar cusbitaalka wixii aanu niri ee programku ballan qaaday sidiisaanu haddii ilaahay ka dhigo u fulinana markii aanu tagnaba dagaal iyo hawl baa naga qabsata waanu maqannahay waanaanu u dulqaadanaa hadallo badan oo dadka maxaa la yahay dulqaadka badan ee reer Ceergaabo maxaa la yiraahdaa ka soo fulayso oo maalin walba hadalka miyaan waxba jirin iyo idin meeyay iyo waa habsaanteen iyo ma dhaxday ka leexatay waxaan oo dhan waanu u dulqaadanaa xaqna way u leeyihiin dhakhaatiirta sida ay u kala horeeyaan baan idinku sheegay magacyadooda halka dhakhtariyaan oo ugu midigta xiga can you stand up dhakhtariyaan please yet dhakhtariyadu waa sooxiye okay waxa laga yaabaa qualification-ka uu sito inaan East Africa ba aanu sida nin qof sita okay thank you dhakhtariyad sit down please Dr. Ahmed waxa weeyaan waa dhakhtarkii dumarka ku takhasusay dhakhaatiirta saddexda dhakhtarba eriyooyinkooda thank you Dr. Ahmed Dr. Mohamed waa orthopedic ama chachapkii dhakhtarkii Ceergaabo waxay kaga gedisan tahay gobolada kale waxa ku badan chachapka referralka oo imika inta jeer dhakhtarkan uu refer gareeyo Hargeysa iyo Burco iyo Addis Ababa iyo ilaa wadamada kale oo dhan waa chachapkii in ay halkan wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa systemka SDF-ka irka iyo madaxda shifaad bay igaga dambeyn doonaan iyaguna soo socda oo iyaduna good news dawooyinkii iyo qalabkii loogu talagalay labada gobolba Ceergaabo iyo Laascaanood ama Sanaag iyo Sool iyaguna waa soo socdaan waxa imanaya labada maalmood ee socdo aanu halkan ku suganaa consultanadii imanayay ee qiimeynay facility-ga drugska 3 weeks ugu badnaan ayay ku imanayaan dawooyinkii iyo qalabkina taasina waa bishaaro cusub oo this morning aanu islahayn talow yaama idinku raagtaayo iyaduna iman doonta marka marba wixii waana waxyaabaha ugu dambeeya ee soconaya programkii SDF-ka waxaan idin bishaareynaya wasiirka caafimaadku ee waqtigan wasiirka ka wasaaradda dadaal badan iyo dagaal badan baanu ku jirnaa dagaalka badan iyo dadaalka badan aanu ku jirno waxaanu ka codsananaa reer Ceergaabo shacabkeeda in ay aanay naga dul daraanin ee ay dul noogu yeeshaan oo nala ogaadaan oo nala qaataan had iyo jeer waxa dhacda markay wax xumaadaan qof wax xumeeyay oo aan isagu shakhsiyan skillski iyo quality-gii lahayn ayaa dabadeedna marka la qabtay la yiraahdo war sidan ka daa ku carara dabadeedna xagga dambe ama qolo dabada geliya ama wax kale oo ka sii xunba dabada geliya reer Ceergaabo waxaanu ka codsananaa programka SDF-ka ee aanu wadno waa naga serious ilaahay baa nagu og laakiin gacantayada iyo jeebkayga kuma jira dad bini aadam aanu wax ka ruuxana wixii aanu soo helo ee wasiirka caafimaadku uu ku hogaaminayo wasaaradda aanu keenno hana nalagu dulqaato hana nalagu taageero bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah marka ugu horeysa dhamaan madaxda ka soo qayb gashay shirkan iyo mas'uuliyiinta kale iyo shaqaalaha cusbitaalka waxaan idinku salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxa kulli warkii waxa dhameeyay Faisal iyo SDF waxaan ku dari lahaa inuun aan ugu mahadnaqaynaa wasiirka caafimaadka oo dadaal dheer
ugu jira cusbitaalka Ceergaabo iyo gobolka Sanaag sidii adeegyada caafimaadka kor loogu qaadi lahaa annagu shifaad ahaan in muddo baanu joognay Ceergaabo shaqaalahana waanu la soo shaqaynay cusbitaalka iyo kuwa gobolka waxaanu ku ballan qaadaynaa mashaariicda cusub ee SDF ay inoo keenayso hadday dhakhaatiirta noqdaan hadday dawooyinka noqdaan iyo haddii waxyaabo kale oo inoo soo socdaba ay noqdaan inaanu sidii loogu talagalay aanu uga taageerno shaqaalaha iyo maamulka wasaaradda ee gobolka in wixii laynoo keeno aynu sidoodii aynu uga midho dhalino sidaa Faysal sheegay dhakhaatiirtan maanta inoo jooga ma aha dhakhaatiir waxa weeye dhakhaatiir takhasus gaar ah takhasus gaar waxay ku yihiin saddexda maado ee la soo sheegay midna waa suuxiye midna waa qaliinka laakiin waliba waa qaliinka lafaha ama jajabka iyo ninka kale oo ah hooyada iyo dhalaanka saddexda takhasus waxa Ceergaabo loo keenay in ay ugu adeegaan ummadda in aqoontooda iyo awoodooda ay ugu adeegaan ummadda gobolka Sanaag oo looga baahdo adeegyadii loogu tagi jiray burco ama meelaha fogfog saddexda takhasus waxa iyaguna ay shaqadooda kamid ah ama diyaar u yihiin wixii aqoon ah inay u gudbiyaan shaqaalaha heer dhakhtar ha noqdaan heer nurse ha noqdaan in laga faa'iideysto oo kulay aqoonta ayaa la isku dhaafay laakiin aqoontii dhakhaatiirta aynu ka faa'iideysanaynay aynu ka helno cusbitaalka aqoonta markaynu helno wixii kale ee aynu ugu adeegayno bulshadu way dhameystirmayaan annagoo aqoonta ka duulayna dhakhaatiirtana weynala joogaan soo dhaweyn bay inaga mudan yihiin wada shaqayn fiican bay inaga mudan yihiin waa dad dalkoodii ka yimid oo inoo yimid oo marti inoo ah waynaynu soo dhaweyno la shaqayno ka faa'iideysano iyaga laftigooda waxba u kordhaya waxa u kordhaya inay noqdaan wax wanaagsan oo ka turjumaya dhaqanka wanaagsan aynu leenahay iyo dadnimada aynu leenahay haddaynu nahay reer Sanaag ama reer Ceergaabo qolo la yiraahdo Some Child oo ay abaabuleen dad reer Sanaaga oo ka soo jeeda gobolka Sanaag waxaanu wadnaa daawooyin mucaawino ah oo aan ugu talagalay abaaraha iyo in la gaarsiiyo dadka ay abaartu haleeshay oo ka kooban ilaa iyo 300 ilaa 400 pound oo daawo ah oo isugu jirta noocyada caruurta dumarka iyo shubanku dadku markuu ku dhaco wixii lagula tacaali lahaa daawooyinka waxaanu ku wareejinaynaa wasaaradda oo mahad iska leh si fiican noo soo dhaweysay wasiirka ayaa si fiican noo soo dhaweeyay markaanu Hargeysa tagnay qayb weyn oo lixaadlana ka qaatay keenista aanu keenay gobolka Sanaag marka waxaanu ku wareejinaynaa wasaaradda caafimaadkuna insha Allah iyada ayaa ku wareejin doonta dhulkii loogu talagalay iyo sidii loo gaarsiin lahaa bacda salaan kullayba niman aftahanada halka hadlay runtii waxa la inoo sheegay reer Ceergaabo waxa loo wado maalinba dhowr jeer oo aynu kulannay halkan maalinba waxba la inoo waday maanta waxa ugu muhiimsan waxa la inoo wado dhakhaatiirtii la yiri waa dhakhaatiir specialist ah oo ka shaqayn doonta waxyaabaha reer Ceergaabo ee baahida ay u qabaan haddii ilaahay garto halkanna waxa la inaga codsaday haddaynu reer Ceergaabo nahay dhakhaatiirtaas soo dhaweeya kana faa'iideysta waxaan isleeyahay taasu maaha mid laydinka baahan yahay inaad ka hor timaadaan waa mid kullayba aqbali doontaan waa soo dhaweynaynaa dhakhaatiirta cusub haddii ilaahay yiraahdo waa ka faa'iideysanaynaa shaqaale ahaan iyo dadweyne ahaanba inaan ahayn markii koowaad aan imaado aanu gobolka Sanaag mar hore ayaan imi iyadoo wasiirka caafimaadku uu soo kala diray agaasimo waaxidada dawooyinkii la soo dhiibayna waan gaarsiiyay anigu halkii loogu talagalay waxaanu ballan qaadnay inaanu keeni doono oo amar wasiirkuna soo faray wasiirkuna marka dambe na soo raaci doono horta reer Ceergaabo waxaanu sheegaynaa inaanu fulinay dawooyin labaadna waanu sidnaa oo waanu keenay wasiirkiina maanta waa ka idin hor fadhiya waxa aan leeyahay on dardaarankaanu kaga baxayaa reer Ceergaabo wasaaradda caafimaadku way idin heelantay waxa laaliyo waxa dalbataanba waad arkaysaan oo waa la keenaya sidii aad u ilaashan lahaydeen
dhakhaatiirta ajaanibka inoo joogta dhismayaasha idiin socda qalabka la geeni doono dawooyinka markaa dardaaranka un baan anuun kaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasiirka caafimaadku reer ceergaabo wuxuu inoo qabtay intuu joogay xukuumaddan uu wasiirka ka noqday waad arkaysaan awal carruurteen iyo naageen waxay ku dhimanayeen waddooyinka waynu aragnaa maanta cidna meel ma geyno dhakhaatiir wanaagsanna way inoo joogtay kuweennii horena way joogaan wayna inoo shaqaynayaan tegina maayaan kuwanna waynu la shaqaynaynaa inay wasiirka caafimaadka horta u dhisno magaca cusbitaalkan ugu magac darno weeyaan Salaamaan Ciise Cabdilka Toosiye because wuu dhaqaajiyay dhakhtarkeena waan ku mahadinaynaa iyo hay'adda Shifaad wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu innaku runtii wax waa la tawdaa waa la tabanayaa wixii la tabto waa in si macquula looga wada hadlaa weyn ma aha in la qayliyo ama la buuqo wasiirka iyo madaxda Shifaadba gooni baanu u aragnay intaanaan shirka iman waxaanu kala hadallayna wuxuu ahaa iyo madaxa sanduuqa SDF waxaanu kala hadalnay koow waxa weeye shaqaalihii wanaga qanciyeen wasiirkaana sheegi doona oo ka warrami doona waxaanu kala hadalnay dhakhtarradeennii hore ee inoo joogay waanu gaadhsiinay innaguna waa guuxaynoo ku badan waynu isla ognahay waanu u sheegnay wasiirku wuxuuna yidhina waa haynaa wasiirkaana ka hadli doona waxaanu ka hadalnay dhismaha awalba dee wasiirku isaa keenay meesha haddii khalad ku jirana waa la saxayaa wax dhibaatooyin ma jiraan haddaan waxba ku jirna waa la arkayaa isaguna waa inoo dhammaanayaa insha allahu waxaana ka hadli doona wasiirka waxaan leeyahay intaa halkaasaan kusoo dhaafayaa waxaan u soo gudbayaa war innaga wixiina soo gaadha hadday dawo tahay iyo hadday qalab tahay iyo hadday wixiina soo gaadhaan ku faraadayno hana dhaqaalaysanno waxaan dhaafay ninka dhallinyarada ah ee dawadan halka taalla keenay waxa weeye ninkaan garanayno waa garanayaa ninkaan garanaynaya waa ina cawad calisanyare wey waa nin reer ceergaaba aad baan kuugu mahadnaqaynaa dhallinyarada kalena waxaan rajaynaynaa inaad sidaasoo kale ay ku daydaan adigana waan kuu mahadnaqaynaa iyo ciddii kale ee kula soo abaabushayba waxaan leenahay wixii aynu tabanno hansida dariiqu yahay u sheeganno berdo labadiiba way noo joogaan aad iyo aad baa wasaaraddan u mahadsan tahay wixii khaldaad waa dhacayaa binaadan baynu nahay dariiqu sida uu yahay aan marro iyo inaan iska buuqin ama telefishinka tegin wasiirku wuxuu sheegay iminka markaanu goonni soo aragnay nin baa hadlay oo wuxuu yidhi daacuun baa ka dilaacay ceergaabo dee warkaas wayna rogaya marka haddii daacuun naga dilaaco baan baa layna saarayaa gebiganna layna arki maayo war wax qoonsimaad waa haddii jiro han wada hadalno madaxda gobolka iyo degmada ha soo gaadheen annaguna waa gudbinaynaa iyagaanu u gudbinaynaa jawaabtaynu sugaynaa dariiqaan marro min fadlakum laakiin yaynaan iska qayrin aad baa u salaamantihin I will repeat what I said 4 months ago, that the only reason we are here is you, all of you. We are here to serve you. Somaliland government and the minister and the mayor, the local government, SDF and Shifat, and our support and your hard work, we will do it. We will make this hospital great hospital. Thank you. xafladan aynu ku soo dhaweynayno dhakhaatiirta cusbaad ee naloo keenay wasiirku inoo waday wasiir aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waxaanu leenahay gobollada abaartu ka horeeyay ee abaartu aadka u taabatay weeye waxaanu leenahay ha naloo roonaado dawada ha naloo ogaado waanu ka soo fognahay caasimaddii marka waxaanu leenahay gobolka ha la ogaado wasiir adigana aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa dhowrka jeer aad wax badan inaga kaa soo gaadheen haddeerna waxaan u malaynayaa tii laga cabanayeyna in wasiirka inooga jawaabi doona laakiin waa hawl dhammaatay iyana waxaanu leenahay maasha allah haddeer waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiir welcome maanta waxaa farxad weynaya inaynu halkan isugu nimid
iyadoo aan rabno inaan soo dhaweyno dhakhaatiirtii aynu inta badan sugaynay ee aynu rabnay in ay si buuxda u dhaqaajiso cusbitaalkan. waa saddexdaa dhakhtar ee laydiin sheegay, waa saddex dhakhtar halkaa fadhiya. ixtiraam iyo soo dhoweyn ayay idinka mudan yihiin. idinka idiin shaqaynayaan dhakhaatiirtii hore ee hore u joogtay cusbitaalka ee uu Dr. Naasir ka mid yahay way joogayaan, shaqadoodana sidii bay u wadanayaan. waa wax u soo kordhay iyaga laftigooda. culays badan baa saaraa, culays aad u badan baa saaraa. waxa weeye waa faa'iido u soo kordhay. waa niman dhakhaatiirtani takhasusyo gaara wata, way u faa'iideynayaan iyaga laftigooda. marka waxaan dhakhaatiirtana ka codsanayaa inay si wanaagsan u soo dhoweeyaan dhakhaatiirtan oo ay kana faa'iidaystaan lana shaqeeyaan. shaqaalaha cusbitaalka cabashadooda iminka laga sanqarinayay waan dhammaysanay, waan kulannay. waxaa ka maqnaa gunno ay ka qaadan jireen hay-adda la yidhahdo UNFPA. gunnadaasi 9 bilood bay ahayd. waanu haynaa, wayna soo gaadhay, wayna helayaan. taasina waa sidaa weeye. dhismaha wasaaraddu rool bay leedahay. dhismahan heshiis baanu shirkadda kula jirnaa, tayaanu ka rabnaa dhismaha. waanu ilaalinaynaa, ogolaan mayno in wax naloo dhoobdhoobo, ama kan ha noqdo Ceergaabo ama ka Laascaanood ha noqdo. shaqada waxaa loo joojiyey khaladaad wasaaraddu aragtay. shirkaddiina waanu ka wada hadalnay, waana la saxayaa, uuna bilaabmaya. idinka laftigiinana mas-uuliyad baa idinka saaran inaad ilaashataan tayada. waayo dooni mayna wax iminka inta deg deg loo dhiso berrita dildilaaca. marka ilaalin aanu idinka idiin ilaalinayno ayuu u joogsaday dhismuhu, waanu bilaabmayaa. Laascaanood shirkadda dhisaysa 9,000 oo midh oo jaajuura oo ay sameeyeen oo wasaaraddu aragtay inay yihiin bilaatayo ayaanu ka burburinay. halkan 6,000 baa la burburiyey. 6,000 oo midh Soomaaliya Faysal 600. waxay naga tahay mas-uuliyad iyo ilaalin iyo in dhismo wacani oo loo hayo 100 sano jira in la sameeyo. marka taasna waa saas isku taagay. mashruucan SDF runtii uu nagu raagay, waqti badan baanu daba soconay. laakiin maanta dee waa kaasoo meel wacan buu maraya. waxaan aad u dhaliilayaa hay-adda maamusha mashruucan Somaliland Development Fund oo la yidhahdo Mark McDonald oo runtii waqti badan naga lumisay, waqti aad u badan. mashruucan oo ahaa inuu bilaabo 2 sano ka hor, in uu imika bilow yahay, iyagaa mas-uuliyadda iyo dhaliisha dusha ka saaraya. laakiin meel waxaan bay maanta maraysaa wata mar haddaynu dhakhaatiirtii keennay. waa ka Faysal idin siiyey warbixinta. dawadii iyo qalabkii baa imanaya. shaqaalihii iyo gunnadoodii baa ayaa la bilaabaya haddii alla ka dhigo. cusbitaalkan wuxuu noqon doonaa cusbitaal rasmiya oo lagaga maarmo safarro dhaadheer oo meelo fogfog loo tegi jiray. abaaraynu ku jiraa. wasaaraddu dadaal badan bay wadaa abaarahaasa. waa markii labaad bil gudaheed ee dawo la keeno. dawada intani waa sample, way badan tahay oo halkaasay taallaa. waddanka oo dhan wasaaraddu xaalad degdegay ku jirtaa inta abaaraha. daawooyin bay qaybinaysaa. tiimam wareegayaa jiro meel walba maraya oo dadka meel walba ku daweynaya. dhakhaatiir cusbitaallada oo dhan baa ku jira Istanbul. meel wacan baanu marinaynaa, waana sii labanlaabaynaa dadaalkayga. waxaan u mahadnaqayaa Guuleed iyo hay-adda Som Child oo daawooyin na soo gaarsiisay ay ugu tala galeen gobolkan Sanaag, gaar ahaan Sanaag bari, Badhan iyo Dhahar iyo iyo Xingalool baa la gaarsiin doonaa.
waan u mahad celinayaa qurba joogta kalena waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan oo soo taageeraan dadkooda xaalad adag baa lagu jiraa oo abaareed inay ka soo qayb qaataan gurmadka ayaan ugu baaqayaa annagu wasaarad ahaan waxaanu ku shaqaynaynaa siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee caafimaadka taasoo ah in la gaadhsiiyo adeegyada caafimaad qof kasta iyo meel kastoo dalkeena ka mid ah marka waxqabadkii caafimaadka laga qabtay intii madaxweynuhu joogay talada hayay waa boqolkiiba 2,000 marka loo eego maalintuu la wareegay xaaladda caafimaadku siday ahayd iyo maanta halku marayo marka ilaahay baa mahadle laakiin waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo nala garab taagan had iyo jeer inuu ka jawaabo baahiyaha caafimaad ee u gudbisano shaqaalihii SDF waan sheegay in gunadoodii la bilaabi doono waxaan kaloo aad uga xumahay program wanaagsanaa oo halkan ka socon jiray oo la oran jiray Simok oo bilaash qaliina iyo dhalmadaba bilaash ka dhigay wuu dhamaaday hay'adii fangrain jirtay baa lacag weyday ilaa intaanu lacag kale helno barnaamijkaas uu istaagay shaqaalahana waan u sheegay oo kooda hadalay waa dadaalayna programadu qaarna way bilaabmaan qaarna way dhamaadaan mid baa dhamaaday mid baa inoo bilaabmaya aad iyo aad baad mahadsantahay kii gaarka ahaana waa naga intaasi dhinaca filim qaadista iyo habeynta waa Nimcaan Axmed Dagaal soo jeedintuna waa aniga oo Axmed Cismaan Batuuna tan iyo kulanti dambe nabadgelyo xornimo Soomaaliya wana gasido sadkii midnimo sareeyada dhale salka dhigay Soomaa qaranku Soomaaliya wana gasido sadkii midnimo sareeyada dhale salka dhigay Soomaa qaranku Allah usiyadi nabada sugano barwaaqo ku soo Somaliland Allah usiyadi nabada sugano barwaaqo ku soo Somaliland